Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaysta ma tahay arday doonaya in loo naqtiimiyo casharada biology-ga iyo chemistry-ga mise ma tahay arday doonaya inuu ku takhasuso mustaqbalka biology-ga iyo chemistry-ga? Haddii ay jawaabtu tahay haa, fadlan subscribe garay channelkeeni Kororso Aqoon si aad u hesho casharo taxane ah ee dugsiga sare. Kororso Aqoon waa channel waxbarasho. Waxa uu ku soo gudbinayaa dhammaan casharada diiniga iyo maadigaba. Si aad uga faa'iidaysato, fadlan subscribe garay oo page-keeni like garay, share-tana inoogu dadaal. Casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay labada qodob ee ugu dambeysa characteristics of living things iyo comparison between plants and animals. Waxaynu ka soo hadalnay nooleyaashu in ay leeyihiin astaamo lagu yaqaan oo 10 ah. 8 ka mid ah baynu ka soo hadalnay. Qodobka 9aad wuxuu noqonayaa noolaha uu leeyahay irritability, waa dareen ama xasaasiyad wax la yiraahdo. Irritability is the ability of living organisms to detect and respond to stimulus means changes in their surroundings. Irritability waxaan ku qeexi karnaa waa awoodda uu nooluhu u leeyahay in uu ku garto ama uu ku baaro kana jawaabo isbedelada ku imaanaya deegaankiisa ama hareerihiisa ku imaanaya. Noolaha Ilaahay wuxuu u sameeyay xubno uu wax ku dareemo, sidaa daraadeed marka waxa uu dareemayaa qabowga, kulaylka iyo wixii la mid ah. In cold weather, we wear woolen clothes. Xilliga qabowga marka la joogo, waxaan xirannaa dhar suuf ah. Sababtuna maxay tahay? Dareenka aynu dareennay qabowga aynu ka jawaabaynaa, markaas baynu xiranaynaa dharka suufka ah si aan qabowga isaga dhigno. If we touch something hot by mistake, we respond quickly by withdrawing our hands. Haddii aynu taabanno waxyaabo kulul si qaldan hadaynu u taabanno, waxa weeyaan gacanteeni waynu ka qaadaynaa meeshaas si waxa weeyaan weliba dhaqso aynu uga qaadaynaa. Taa waxay keentay noolaha inuu leeyahay dareen uu wax ku dareemo iyo ka jawaabid uu ka jawaabayo wax alla wixii ku yimaada ee hareerihiisa. During drought, roots of plant grows further downwards in search of water. Xilliga abaaraha marka la joogo ama jiilaalka ama biyuhu ay yaraadaan, xididadu waxa weeyaan way korayaan, waxa weeyaan aad u fog qaybta hoose ee dhulka ay galayaan xididadu ayagoo raadinaya biyo raadinaya. Taana waxa weeyaan dareenka ay dareemeen ay ka mid tahay, oo waxa laga wadaa dhirtuna wax bay dareentaa. Qodobka 10aad ee noolaha lagu yaqaan waxa ka mid ah life cycle. Noolaha wuxuu leeyahay meerto nolol waxa weeyaan ka bilaabmaysa cell oo waxa weeyaan ku dhamaanaysa koriin ka bacdi taran ilaa dhimasho ayuu leeyahay noolaha. waa sida Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay min nutfa min calaqa mukhallaqa ghayra mukhallaqa ka bacdina waxa weeyaan inuu gaaro ashuddahu, ka bacdina waxa weeyaan inuu noqdo qof weyn oo da' ah, ka bacdina inuu dhinto. noloshaas meertada ah ayaa la yiraahdaa life cycle oo noolaha uu maro. Living things flow a life cycle. Nooluhu wuxuu marayaa meerto nolol, waxayna ka soo bilaabanayaan single cell, hal cell bay ka soo bilaabanayaan. oo bani aadamkan aad u jeedo waxa weeyaan waa hal cell buu ka yimid, oo waxa weeyaan cells ka yimid parentiska, oo waxa weeyaan ilmo galeen lagu koriyay, oo zygote noqday, oo body noqday, oo ilmo dhashay noqdeen ayuu ka yimid bani aadamka. sidaa daraadeed marka nolosha waxay ka bilaabmaysaa cell bay ka bilaabmaysaa, dhir ha noqdo ama bani aadam ha noqdo. And flow the path of growth, reproduction and death. ka bacdina wuxuu marayaa wadadii waxa weeyaan koriinka, taranka iyo dhimashada ayuu marayaa. marka kaasa waxa la yiraahdaa life cycle. Life cycle hadaynu qeexno waa the period during which an organism completes
its life cycle is called the life span. xilliga ama waqtiga ay ku qaadanayso noolaha inuu kusoo gabagabeeyo meertada noloshiisii ayaa waxaa la yiraahdaa life span ayaa la yiraahdaa. halkaasoo marka ku dhamaanaya noolaha. waxaa dhici karto waqtiga isagoo uusan gaarin in uu dhinto, waa awoodda Ilaahay bay ka mid tahay. qofka isagoo ilmo yar ah oo dhashay ayuu dhiman karaa, isagoo wax weyn da ayuu dhiman karaa, laakiin waxaa laga hadlayaa dadka gaaraya darajada da'da gaaraya ayaa laga hadlayaa life cycle-kaas ay marayaan ayaguna. qaybta ugu dambeysa ee chapter-ka maanta waxa weeyaan differences between plants and animals, farqiga u dhexeeya dhirta iyo xayawaanada. haddaynu ku horeyno dhirta iyo xayawaanada, dhirta waxay leedahay 5 astaamood ay uga duwan tahay xayawaanada. xayawaanaduna waxay leeyihiin 5 astaamood ay uga duwan yihiin dhirta. Plants waxaa la yiri are generally rooted in one place and don't move on their own. dhirtu waxa weeyaan hal meel bay taagan yihiin oo wax weeyaan xididadoodii dhulkaas ay ku aasan yihiin. waxa weeyaan uma dhaqdhaqaaqaan, iskoodii uma dhaqdhaqaaqaan. dhaqdhaqaaq way sameynayaan, laakiin dhaqdhaqaaq ay meel ka tagayaan, meel kale aadayaan ma aha. Animals kadaynu fiirino, most animals have the ability to move from one place to another. waxay awood u leeyihiin xayawaanada in ay ka dhaqdhaqaaqaan meel kale ay aadaan. halkaan ay ka guurayaan, meel kale ay aadayaan. waa tan la isla garanayo oo xayawaanku uu sameynayo ama bani aadamku uu sameynayo. Plants contain chlorophyll. dhirtu waxay leedahay maadada la yiraahdo chlorophyll ay leedahay oo cagaariyaha ah ay leedahay. maxaa yeelay cuntadeedii ay ku sameysanaysaa markii ay hesho biyo iyo iftiinka qorraxda iyo carbon dioxide-ka iyo waxa weeyaan nutrients-ka markii carrada ay ka hesho. dhirtu waxa weeyaan waxay sameysanaysaa chlorophyll oo cagaariye ah, cunto sameys bay bilaabaysaa oo maadadaasi waxa weeyaan ay soo saaraysaa. Animals don't contain chlorophyll. xayawaanadu ma leh wax chlorophyll la yiraahdo ama cagaariye la yiraahdo ma leh. maxaa yeelay ayagu waxa weeyaan heterotrophic weeye, waa quutayaal weeye. uma baahna marka chlorophyll uma baahna. maxaa yeelay cuntada diyaarsan ee dhirta iyo xayawaanadu ay diyaariyeen bay cunayaan. dhirta diyaarsan ay cunayaan iyo xayawaanada ayaga markaasi waxa weeyaan cawska cuna iyo kuwa hilibka cuna ay toos u cunayaan bani aadamka iyo xayawaanada kale ee xoogga leh. sidaa daraadeed marka ayaga waxa weeyaan hawshoodii waxa weeyaan waa heterotrophic. sida dhirtoo kale ma aha, dhirtu waa autotrophic weeye, iyada cuntada diyaariso. Plants can make their own food, thus they are autotrophic. dhirtu waxa weeyaan cunadeedii way sameysanaysaa, waa processkii photosynthesis ku sameysanaysaa, waana autotrophic weeye. Animals can't prepare their own food, hence are heterotrophic. xayawaanadu ma diyaarsan karaan cunadooda, waa heterotrophic. ma diyaarsan karaan marka la leeyahay ma aha xayawaanku cunto waa diyaarsadaa hadda sida aynu u fahmayno ma aha, oo ah inuu raashinkiisii uu waxa weeyaan uu karsado uu cuno, waxaas ma aha. waa cunto asaga waxa weeyaan sida dhirtoo kale u sameynayo ma jirto. saasaa laga hadlaa. Plants respond slowly to changes in their environment. dhirtu waxa weeyaan isbedelka kaga imaanaya deegaanka waxa weeyaan waxay kaga jawaabtaa si tartiib ah ay kaga jawaabtaa. waxa weeyaan مثلا haddii biyo la'aan ay dhacdo isla markii geedku maqalalayo waa waqti qaadanaysa cabaar iyo wixii la mid ah. Animals respond to changes in the environment. xayawaanadu way ka jawaabayaan isbedelka ku imaanaya deegaanka, isla markiiba way ka jawaabayaan. qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan plants lack complex excretory organs. dhirtu waxay leedahay oo ka maqan xubno qashin saar oo wax weeyaan dhameystiran ma leh. caleenta duleeladeedii stomaatada ay dhirtu ka neefsataa ay ka bixdaa wasakhda iyo wixii la mid ah. laakiin animals have complex excretory organs. xayawaanadu waxay leeyihiin xubno qashin saar oo dhameystiran ay leeyihiin. ayagu waa kan ay leeyihiin maqaarka, ay leeyihiin keliyaha oo soo saara marka la sifeeyo kaadida ay cusbada iyo laga soo saaro. maqaarka waa kaas biyaha dheeriga iyo cusbada soo saara. lungs samabada oo soo saara carbon dioxide-ka. ayaga xubno dhameystiran ay leeyihiin.
fadlan dhegeysta share garay channelkeennii si aad u hesho xogta cusub ee mar walba la soo geliyo. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. chapterka labaad la soco insha allah.